barnaamij loogu baaqayo bulshaweynta ku dhaqan magaalada Wilmer ee gobolka Minnesota. barnaamijku waxaa loogu magac daray nala wadaag sheekadaada. waxaana barnaamijka wato Wilmer Main Street oo gacan ka helayo isku taga diimaha magaalada Wilmer ee gobolka Minnesota. waxay ka codsanayaan bulshada ku dhaqan magaalada Wilmer oo qoomiyadda afka Soomaaliga ku hadasho ay kamid tahay in haddii aad daneynayso in taariikh nololeedkaaga aad la wadaagto dadka ku dhaqan magaalada Wilmer ee aad ku soo dhaweynayaan. marka nala wadaag sheekadaada waxaa kamid ah qofka inuu ka sheekeeyo taariikhdiisa. tusaale ahaan aniga Leila Sheekh Aadan Ismaaciil la dhahaa, waxaan ku dhashay gobolka Jubbada Hoose, yacni waxyaabo noocaas camal ah. qofku wuxuu ka sheekeynayaa magaciisa, meeshuu ku dhashay, noloshiisa meeshuu kusoo qaatay, shaqooyinka uu qabto, hadduu wax bartay, waxbarashadiisii. qasabna ma aha in aad luqadda Ingiliishka ku hadasho. luqadaada hooyo afka Soomaaliga adoo ku hadlayo waxaa lagu sameynayaa turjubaan. marka waxay rabaan Wilmer Main Street oo gacan ka helayo isku taga diimaha Interfaith Network gacan ka helayo. waxay rabaan bulshada Wilmer ku dhaqan inay isbartaan oo ay isla sheekeystaan oo qof walba taariikhda uu soo maray uu ka sheekeeyo, uu la wadaago dadka kale. ilan dadka bini'aadanka isku taariikh ma aha, isku nolol ma aha, isku meel kama imaanin. marka si dadka community-ga isku dhex galaan oo la isku fahmo oo haddana loo helo qof walbaba space-kiisa iyo u dabaaldega waxyaabaha uu jecel yahay inuu u dabaaldego. tusaale ahaan dadka Soomaaliyeed waxay jecel yihiin inay u dabaaldegaan maalinta xorriyadda ay qaateen, inay u dabaaldegaan ciidaha islaamka oo kale. yacni in aad u sheegto dadka kula degan dhaqankaaga, diintaada, waxa aad hobigaaga u yahay, waxa aad jeceshahay, adoo noloshaada ka sheekeynaya haddana wax walba u sheegi kartaa. marka Wilmer Main Street waxay codsanaysaa haddii aad rabto inaad taariikhdaada la wadaagto in aad nala soo xiriirto. Facebookga iyo YouTubeka soo dhigaya linkiga meesha qaybta hoose si aad u sign up gareyso, kadibna aad magacaaga iyo informationkaaga u geliso oo haddii aad rabto sheekada inaad la wadaagto. waxay dhaheen qofka 18 sano ka yar haddii waalidka uu la socdo, qofkaas sheekada uu nala wadaagi karaa. haddii kale waxa ay daneynayaan 18 sano in qofka uu ka weyn yahay, qof qaangaara waaye. markaas sheekadana waxay rabaan yacni sheeko oo true ah oo qofka kusoo dhacday noloshiisa. ilan qofna kama sheekeynayo nolol aanan jirin. marka barnaamijka waxaad la socodsiinaysay inta yaroo xayeysiiska ah anigoo Leila Sheekh Aadan ah. barnaamijyo badanna waan soo wadaa haddii alla hawada la ogolaado. xayeysiistana sii share gareeya haddii alla idmo, asxaabta gaarsiiya, gruubyada gaarsiiya. qofka daneynayo linkiga hoos aan soo dhigi doono insha Allah hanagala soo xiriiro, ama taleefankayga soo dhigaya insha Allah. qofka luqadda Soomaaliga ku hadlo halkaas hanagala soo xiriiro haddii alla idmo. barnaamijku waxaa la isku dubridayaa in la sameeyo dhamaadka bisha January insha Allah binillaahi kariim, in dadka taariikhooda ka sheekeynayaan. haddaad jeceshihiin aniga laftirkayga waan ka sheekeyn doonaa. welcome everybody haddii alla idmo, soo dhawaada. channelkan hadday subscribe-ka, like iyo share-ka ii saara. YouTube cusub oo aan sameeyana waan soo gelin doonaa insha Allah, oo sheekada waa la wadaagi doonaa. dee Facebookgana waa wada taqaanaan oo Somali Wilmer area waaye. kulanti wacan oo wanaagsan. barnaamijkan duubistiisa waxaa gacan ka geystay xarunta isku xirka dhalinyarada CIC. inta barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono dee qadarka yar xayeysiiska ah